shirkadda Daus Company ayaa waxa ay munaasabad ballaaran ugu tala gashay inay ku soo bandhigto hawlaha kala duwan ee ay u qaayso bulshada noocyada kala duwan ayaa waxa ay ku qabatay hotel Reis magaalada Boorama munaasabadaasi oo mid aad u ballaaran markaasina ka soo qayb galeen marti sharaf aad u tiro badan ayaa waxa halkaasi ka hadlay markaasina ugu horantii faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay waxqabadka shirkadda Daus Company mulkiilayaasha shirkadaasi iyagoo halkaasi ay ugu horantii ka hadashay gudoomiyaha gobolka Deeqa Aadan Dugsiye oo sheegtay xafladan waxay ku saabsan tahay in shirkadda Daus Company ee walaalaheena inoo soo bandhigaan agabyada ay soo saaraan ama product-yada ay soo saaraan ay u tala galeen gobolka Awdal iyo Soomaalida gobol kasta ay joogaan oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan inay siiyaan alaabteedu aad u sareyso caafimaadkeeduna aad u fiican yahay ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan gobolka Awdal baan aad ula hadlayaa waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca Daus Company ee baraajka Boorama dadka reer Awdal waa inay ka faa'iideystaan jaaniska maanta ballaaran ee la siiyay Daus Company walaalaheena Soomaaliya sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay mulkiilaha guud ee shirkadaasi ahna gudoomiyaha guud ee shirkadaasi Cabdiraxmaan Nuur Cali waxana kamid ahaa hadaladiisii Daus Company waxay ka bilaabatay bilan gabadhaas dhibaatada ay la kulantay aasaaska Daus oo dhan waxa iska lahaa bilan baa iska lahayd galabta waa inay ogaataan bilan waxay dhashay marka company dhan oo la yiraahdo Daus oo iminka soo saara bilan marka laga reebo 7 production oo kale 7 staff oo kale oo galabta idin hor yaalla qayb kamid ah galabta insha Allah billahi karim waxaan idin siin doonaa hadiyad hadii Allah idin dabcan hore waa isu aragnay dadka gabdhaha qaarkood waxaan leeyahay marka kale oo aan rabo inaan dhaafin gobolada Soomaaliya meelaha ay gaarsiisan tahay dalka waxaan leeyahay Daus Company waxay ka soo bilaabatay North America magaalada la yiraahdo Minnesota waa maraqo weey ka hayshay mareedo waa baabuurta kan isaga waa garanaysan waa kii ciyaalka dabada laga marinayay oo loogu talagalay saxarada iyo kaadida in laga tiro muuna way baa la yiraahdaa xafaayadu la socdaa inta badan isaguna uu weeyahay idinka arkay biyo waa qabow mararka qaarkood xilliyada jiilaalka oo kale caruurta marka biyo qabow wax lagu shubayo ilmihii uu yar dhaxamoonaya laakiin waxa ka fiican kan sanitation hal iyo caafimaad ahaan waxa ugu muhiimsan oo aan rabo galabta inaan ka hadlo inta kale hore aan tiqineen waxa weeye caanahan waxa ugu muhiimsan oo xafladda galabta ay ku saabsan tahay caanahaas xaqiiqdii caanahaasi taariikhda ay soo mareen baan rabaa galabta Boorama yaalla Rice Hotel yaalla inaan idin ka sheekeeyo wax yar intaanan iyaga sharxin sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay marti sharafkii aad ku tira badneed halkaas ka soo qayb gashay oo mahadnaq ballaaran u jeediyay shirkadda Daus Company soo wada duubo waxa munaasabadaasi lagu soo gabagabeeyay markaasna lagu soo afmeeray hadiyad gaar ah oo shirkadda Daus Company ay siisay marti sharafkii ka soo qayb gashay isla markaasna ay u qaybisay iyadoo marti sharafkaasi ay u badnaayeen haween kuwaas oo u qaybisay waxyaabaha kala duwan adeegyada kala duwan ay isticmaalaan dumarku in Cabdillaahi Dugsiye telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Boorama.